takbiir isaga oo leh waxa soo dhawaatay xilligii qawaarijtu ay la wareegi lahayd magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya haddaba qof kasta oo Soomaaliyeed muuqaalkan like saaro hana la wadaago laamaha ammaanka ee Soomaaliya beesha caalamka iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud soo dhawaada dhamaantiin aad baad u mahadsantiin aynu ku bilowno dagaalkii qaraaraa ee ciidanka dawladda Soomaaliya ay isaga difaaceen sida oo kalena ay isaga jilib dhigaan kooxda qawaarijta ah oo maantay dagaal qaraar ku qaartay degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxa durbadiiba ishayn kari waayay sida oo kalena markaasi afka abur ka sii daayay siyaasiyiinta maamulka Hargeysa waxaana yaab noqotay in Faysal Cali Waraabe oo maalintii ra'iisul wasaare Xamse uu imaanayay laascaanood sheegay in imaatinka Xamse aysan wax dhib ah lahayn sida oo kalena xilligaas uu Twitterkiisa ku baahiyay in bisha May 2025 kooxda qawaarijta ay qabsan doonaan xamar ayaa maantay dabaaldegay wuxuuna baahiyay qoraalkaasi aad u jeedaan isaga oo leh Allahu Akbar guul qawaarijtii waa waray hogayo baaya hadda xamar lagu kala cararaya waa waray buu leeyahay waad u jeedaa qoraalkaas ayuu ku baahiyay Twitterka waxa yaab noqotay in warbaahintii maamulka Hargeysa ay si dhab ah ay u taageerayaan waliba telefishinadii maamulkaasi deegaanadiisa ka shaqeeya sida codka bariga Afrika CBA and televisionka Sab TV iyo ninkan wariyaha ah oo loo yaqaan Xasan Galeyd dhamaantoodna waxay si aan ka gabashadayn oo bareer ah u buunbuuninayaan markaasi wararka taageersan qawaarijta iyagoo aad moodid in warbaahintii qawaarijta ee Al-Kataib maanta laga soo qorayo Hargeysa ayaad moodaaba aad iyo aad markii halkaasi joogta markii maxay tahay aragtida ay ku hubaysan yihiin gooni goosadka maxay tahay aragtida ay ku hubaysan yihiin qawaarijta labadan aragtiba waxa ay diidan yihiin jiritaanka ummadda Soomaaliyeed waxayna cadow u arkaan qof kasta oo Soomaali ah sidoo kalena waxa ay diidan yihiin astaan kasta oo Soomaalidu leedahay sida calanka Soomaaliya oo kale dhamaantoodna waxay u arkaan cadow taas darteedna waxa ay ka midaysan yihiin nacaybka ay u qabaan Soomaalida inteeda kale ma ahan in ay qabiil nacib yihiin balse waxay diidan yihiin jiritaanka dawlad Soomaaliyeed oo cagaheeda ku istaagta taas oo ka dhalata guud ahaanba koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya sidaas darteedna si uu u sii jiro fikirka gooni goosadka ah kooxda Hargeysa joogta waxay qabaan in la taageero cudud dhaqaale siyaasad mood iyo maalbaba qawaarijta si aysan u caga dhigan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya sidoo kalena aragtidooda gooni goosadku ay muddo dheer u sii jirto waxa ay ku dhaqaaqeen dhammaan tallaabooyinkaas siyaasi ahaan way u taageereen oo Faysal Cali Waraabe ayaad u jeedaan warbaahin ahaan iyo propagandada miidiyadana waad u jeedaan warbaahintoodii halka ciidan ahaanna ay dhalinyaradii ugu badnayd abwaanadii iyo sidoo kale cid walbaba ay ka soo direen magaalooyinka Burco Hargeysa waxaana kamid ah abwaanada caanka ah ee xilligan ku jira qawaarijta Nageeye Gamaadiid iyo sidoo kale markaasi ninka loo yaqaano markaas Aadan Sunni dhamaantoodna waxa ay joogaan jilib iyo sidoo kale deegaanada kooxda qawaarijta ay ka taliyaan sidaas darteedba kuwa jooga jilib iyo kuwa jooga markaasi Hargeysaba hadii ciidan ahaan ay u joogaan warbaahintiina ay u taageerayaan siyaasad ahaan ay u taageerayaan ma jiro farqi u dhaxeeya markaas qawaarijta iyo gooni goosadka haddaba qof kasta oo Soomaaliyeed aragtida hoos nugula wadaag muuqaalkan like la dhaca share gareeya daaqad walbana ka tuur aad baad u mahadsantiin